daawade subscribe saar kanaalka Tech Cusub si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada. Soo kan gambalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeyay ee hela muuqaalada. asxaabteedii sharaftii qiimaha mudano waa mar kale iyo Tech Cusub isku noqod wanaagsan. magacaygu waa Maxamed ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada oo barnaamij aan ugu hadalno wararkii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada. haddaba maanta wararkeen waxaa kamid ah barnaamijka Dropbox oo barnaamijyada ugu caansan ee lagu keydsado faylasha sida muuqaalada, sawirada iyo waliba documents ugu muhiimsan ayaa hadda waxa ay keenaysaa barnaamij aad ku keydsan karto passwordadaada ama aad ku maamulan karto passwordadaada. oo waxa uu shaqeynayaa sida barnaamijyada kale ee iPassword oo waxa aad ku keydsan kartaa dhammaan passwordadaada. shirkadda WhatsApp Messenger oo haddeertan ku keentay barnaamij WhatsApp payment ah oo waxa aad ku bixin kartaa lacagaha online ahaan aad u bixin kartaa adigoo aadan u baahnayn inaad geliso credit cardkaaga. oo waxa aad ku xiranaysaa credit cardkaaga kadibna haddii aad wax dukaan ka iibsanayso product uu kuu soo dirayaa kadibna isla meeshii aad ku bixinaysaa. shirkadda Apple ayaa haddeertan waxa lagu soo waramayaa in barnaamijkeeda Find My App oo hore loogu yaqiinay Find My iPhone in ay u ogolaatay shirkadaha kale ee Bluetooth-ka in hadda kadib uu Bluetooth ahaan u shaqeyn doono oo telefoonkaaga markuu ka lumo ama wallet-kaaga ama furaha markuu ka lumo yani Bluetooth ahaan ayaad ku heli kartaa ama aad ku raadin kartaa. waayo barnaamijkan markii hore waxa uu ku shaqeynayay kaliya internet oo kaliya ayuu ku shaqeynayay. shirkadda Twitter-ka ayaa ayadana yani ku soo kordhinaysa barnaamij voice ah oo markii hore yani haddeertan markaad Twitter isticmaalayso yani post markaad qorayso qoraal iyo sawir oo kaliya ayaad gelin kartay laakiin haddeertan waxa ay soo wadaa barnaamij voice ah oo codkaaga inta aad duubto kadibna aad dhigi karto. haddaba barnaamijkan waxa uu u fududeynayaa dadka aanan ka gaarin inay wax qoraan in kaliya codkooda ay duubaan kadibna ay post gareeyaan. shirkadda telefoonada soo saarta ee HTC oo haddeertan dib ugu soo laabatay in ay telefoon cusub soo saarto oo waliba 5G leh. haddaba shirkaddan ayaa horey ugu dambeysay in yani telefoon ay soo saarto haddeertan la yaab ay ku noqotay dadka idil markay maqleen in shirkadda ay dib u hawada ugu soo laabatay. shirkadda Apple ayaa haddeertan waxa ay soo bandhigtay ayadana iOS 14 oo runtii iOS 14 waxyaabo badan ayuu wataa. oo haddii yani aad ku update garaysato telefoonkaaga iOS 14 waxaad heli doontaa yani inaad muuqaal adigoo daawanayo kale aad yani barnaamijyo kale aad geli karto. shirkadda OnePlus ayaa haddeertan u muuqata in ay mar kale soo saari doonto telefoon cusub. waayo shirkadda ayaa sanadkan dhexdiisa soo saartay OnePlus 8 iyo OnePlus 8 Pro laakiin haddeertan wax aan laga filayn ay soo wadaa. intaas ayaan kusoo koobayaa maanta wararkii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada. fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena muuqaalkan like saar waayo waxay nagu caawinaysaa in muuqaalkan uu dad badan gaaro. mahadsanidin.